الله يسكت على لو سودوي مغالدة مقدشو هذا لو صبنا أنا صابح الجيش وصابح من أول صومالي لا ما شاء الله تبارك sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xildhibaanada wasiirada iyo shacabka Soomaaliyeed oo soo baxay inay soo dhaweeyaan oo nagu soo dhaweeyaan caasimadii qaranka Soomaaliyeed ee Muqdisho aad iyo aan uga mahadnaqaynaa waa ku faraxsanahay in aan gurigeyga anagoo nimid sidaan loo soo dhaweeyo Muqdisho qof kasta oo Soomaaliyeed oo gurigiisii weeyaan waa sax sida caadiga ah qofka gurigiisa lagu soo dhaweeyo ma sha Allah qofka gurigiisa lagu soo dhaweeyo qiimo gaar bal u yeelaysaa soo dhaweyntaas qofka marka aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waan faraxsanahay in gurigeyga lagu soo dhaweeyo oo dadka intaa leeg iyo madaxda intaa leeg ay noo soo istaagaan soo dhaweynteeda aad u mahadsantihiin sida wasiirku sheegay waxaan xamar u nimid ama Muqdisho u nimid casuud rasmi aan ka helay xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa weeye Muqdisho saan sheegay hooyadii Soomaaliya deegaanada Soomaaliya oo dhan iyada hooyo منطقة SSC خاتمة وحكمت أهل وينها الصومالية هوية اللي يمادوا والصوب وقضوا ويصور نقضوا وشيء طبيعي وياه. صح. أنا وإحنا نقف في السنهدان اللي الناس كنا عم ما يرموا السوين لكن إسكندر دي وحكى صهر مري يرموا حكومة نوية هذي وأنا كم هذا يعني خلاص. ما شاء الله. ترك الصومالية من دماغ ومدة الصومالية ولا شيء كذا هذا قبس كذا هذا تاعنا. Muqdisho waxaan u nimid xoojinta midnimada dad iyo dalhan Soomaaliya waana ka mid ah haddii ay ka dhigo marka shacabka Soomaaliyeed dhammaan ay gacmaha isqabsadaan shacabka Soomaaliyeed iyo jamhuuriyadda Soomaaliyeed dal ahaan iyo dad ahaan way midaysan tahay waxaa si jira kala arag duwan u kala duwan yahay midnimada dadka qaar ay aaminsan yihiin inay go'aan ama dad u jirto waxaan ka shaqayn doonaa hadda kadib aragtida u kala duwan yahay اللي يسوي دوي على بداية ديراك كله ويصور لما تخطرتي تدخل دوي تسلق طبي أنا أقول طيب كمان هاندوني مركلة وحي هذا هو داسن دون هديراك كله إن شاء الله تعالى دي لين هذا وكم هذا وزير سوري ده نص مثلا دي في وانا لغة أقل يقولها وزير دوا يبقى